qalabka korontada naga talaaloobi taas cudurdaar bay dib u soo noqdo ganaaxii maanta waxay tahay inaan wasiir ugu codsanayaa inuu laba kelmo inaga yiraahdo xogeeyaha guud ee rugaha ganacsiga faraha soo maraa hal qof oo kamid ah mas'uulka meesha hadii gur madaxeed qaybtan maanta dadkan hadda waa wajigii labaad waa dhinacan oo dhalinyarada wiilasha iyo dhinacan oo dhalinyarada gabdhaha dhalinyarada waxaan u leeyahay dadka mashruucu uu ku socdo baa waxa ugu weyn da'diisu 35 sano jir waxaana ugu yar 18 sano jir inta idinku waad fahmi kartaan 18 sano jir wixii ka yar waa caruur iskuulka loo diraa 35 sano jirna waa ruuxu aan mashruucu ku socon waxa soo codsaday mashruucan dad badan oo reer Kismaayo mashruucana waa mashruuc tijaabo ah oo waxa la isisiinayaa oo aad u yar yahay laakiin waxaan maalinka horena sheegnay hadan aan ku celinaynaa inay mashruucan lacagta qayb kale ay inaga maqan tahay aan rajaynayno haddaan kan ku guuleysano in la sii daayo si ay bulshadu uga faa'iideysato maxaa yeelay maamulada inaga daaweyn lacagtan lacag ka badan baa la siiyay sida maamulka Somaliland iyo maamulka Puntland maamuladaasi lacagtii la siiyay halfkeed iyo rubuceed inalama siinin waxaan aad iniga mahad celinayaa imaatinka aad imaateen meeshan oo aad u kulul korontadii maanta naga maqan intaba waan ka cudur daaranaynaa balse waxaan filayaa higsigeenu waxa weeyaan inaan horumar sameeyno horumarkaas oo idinka aad laf dhawr u tihiin marka duruuf kasto imaado aynu u dul qaadanna insha Allah barnaamijkan aad la socotaan oo qaybta weyn aad ka ahaydeen muddada badan aad ku soo dhex jirteen oo intaas oo jeer aan inii yeernay waan ina dhibnay Soomaha intaasi wuxuu ahaa inaan helno dadka ugu baahan oguna mutaysan runtii in maalgelin lagu sameeyo waxa lagu celceliyay war waxa layna siiyo waxa laynoo siiyay inaynu ku ganacsano waa farsamo ganacsi waay ma aha macaawinooyinkii kale la bixin jiray oo kale ma waa ganacsigii waxa la rabaa inaad ka muuqatido wixii awal meeshii aad joogtay aad hore uga socotidoo wax siyaado aad soo kordhisay in la arko marka qoladii wax bixisayna niyadda u dhismaysa raggii shaqada qabtayna waa niyadda u dhismaysa waxaan ka tirsanahay dhalinyaradii soo codsatay barnaamijka anaga groupkayga waxa la dhahaa Tawakal groupkaygana waxaan ka shaqeynaa ice creamka ma sha Allah group waxa soo codsanay hay'adaha u soo codsanay waana laga aqbalay ma sha Allah halkan waan ku faraxsanahay in barnaamijka aan soo dalbanay in laga aqbalo dadka danyartaayo waa waxyaalo ay u baahan yihiin danyartu wax ciyaar maaha maanta ninkii haystay meel yaro miisa oo maanta maalgelin la siiyo wuxuu gaarayaa horumar aad u weyn buu gaarayaa haddii uu ku dadaalo weey mar walba maaha waa hadduu ku dadaalo hadduu xajisto meeshiisa ama miiskiisa uu xajisto waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha rugta ganacsiga oo aad iyo aad uga shaqeeyay in haweenka Soomaaliyeed ay u bataan ganacsiga waxaan kale u mahadnaqayaa dawladda Jubbaland oo iyaduna tiraha loo badiyo haweenka iyadana aad baan ugu mahadnaqaynaa waan soo dhaweynaynaa barnaamijkan aad baan ugu faraxsanahay waxaan u mahadnaqayaa hay'adaha ka soo shaqeeyay noo gacanta uga leexis